xoogan ayaa habeennimadan caawa ah waxa uu ka bilowday galbeedka Laascaanood halkaasi waa la isku farsaaray xogihii u dambeeyay ayaan barnaamijkan ku dul istaagi doonaa sirdoonka NISA ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen mucaaradka Somaliland inay ku sugan Hargeysa isla markaana halkaas ay wada hadal hoose ay ka wadaan hadda ay la hadlayaan waxayna kala hadlayaan Somaliland xogahaasina bartan ayaad ka daawan doontaa علي رعلي وكمل ها ابني وسر سرية نود النولل هذا الله لولا يابي يبرح بالشدة قصة قري أو إن دولتي وهو جامين عبد الله فرماجو إن يحمنا الشباب إن متانا قيب كأهايين سيد يسوي هذا القصة ودقي برنامج كان أيام جود هام بعرمها سيكون مستعد دونا وحنا إلى فرنسا دونا صاحب كي جوري وده برتين تبدن إنه إدي سو حكتو حقوقي ودم بيجي عرمها سكو سابسان gooni baa koraan ku bilowno dagaalka caawa ka socdo magaalada Laascaanood gaar ahaan galbeedka xiliga habeenimo matana bilowday hubka noociisa kala duwan isku adeegsanaya horta cunukaasha waa maasan tahay hadda habeennimadan ayaa dagaal wuxuu ka bilowday magaalada Laascaanood gaar ahaan gooja cad aageeda dhanka galbeed sida wararka nagu soo gaarayaan marka dagaal aad u culus ayaa bilowday fidnimada caawa lama filaan ayuu ku bilowday ciidamada Somaliland ay wax isku dayeen inay isku soo fidiyaan dhankan iyo magaalada marka taas ay suuragal weysay oo ciidamada SSC oo heegan ku jiray ayaa ka hortagay dagaal aad u qaraar madaafiicda culus isku adeegsanayo ayaa sida wararka nagu soo gaarayaan hadda ka socdo xaaladuna wali lama qiyaas karo madaafiicda iyo jugta culus iyo rasaasta way dhacaysaa okaasho waxaan ognahay inta badan in ciidamada SSC ay difaac ay ku jiraan marka soo la soo weeraro Somaliland isku day ay sameynayso gaar ahaan waliba xilliyadan hadda ay doonayso in ay gooja cad ay ku qabsato xaflad wadana ay furato si ay dadka wafdiga u imaanaya iyo ciidamada gurmadka ah inta matana ay u helaan meel ay maraan Soomaaliya waxa ku qasabtaa 5 bariyo soo socoto waa inay dagaal galaan ama ay ciidamada SSC ka soo durjiyaan gooja cad si gooja cad xaflad lagu qabto isla markaasina wasiiro iyo xildhibaano iyo dad mas'uuliyiin inay ka soo qayb gali doonaan ayaa la sheegay marka koora ayaa kamid ah rag meesha ku qoran sida uu sheegay marka waxa la leeyahay xaalad xildhibaano culus ay halkaasi imaan doono marka arintaas ay u cabsadeen in maxaa la yiraahdo duqeyn iyo weerar iyo madaafiic ay ku bilaabato inta ay hawsha socoto marka sababta hadda dagaalka iyo dhaqaaqa u bilaabeen ciidamada Soomaaliland waa arintaas waxaan rabaa in isku fidiyaan magaalada waliba buurta dhanka maxaa la yiraahdo galbeedka iyo bariga iyo waqooyiga inay isku balaariyaan ay rabaan si ay safe u noqoto gooja cad xafladda ay sheegayaan ay kaga dhaweeyaan inay ku qabteen gooja cad gudihiisa daawadayaal habeennimadan caawa waliba xilliga salaada cishaha wixii ka dambeeyay ayuu dagaalkan ka bilowday magaalada Laascaanood gaar ahaan galbeedka ilaa hadda faahfaahinada dheeraad ah laga heli karo maadaama ay xilli habeen ay tahay xiriir aan la sameynay dad ku sugan amaba goobtaasi joogay nama suurta gelin inay telefoonada ay ka jawaabaan balse saacadaha soo socdo ayaa si toos ah u daawan doontaa gooni markale aan kugu soo noqdo magaalada Hargeysa mucaaradka Somaliland waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan hay'adda NISA inay ku sugan yihiin marka halkaas ay ka wada hadallo hadda way la hadlayaan cukaasho horta bari la soo dhaafo waxa soo baxay in dib u midoobo doona Somaliland iyo Soomaaliya arintaas waxa leeyahay dagaalkii SSC iyo Somaliland ayaa sababay marka xiriir wanaagsan ayuu xoro musabix inuu la yeesho Soomaaliya asagoo la balansan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Djibouti inay ku kulmaan dhawaan ama isbuuc soo socdo waqtiga noqotaba marka hadda waxa leeyahay mucaaradku waxay leeyihiin rag hordhac ah oo NISA ka socdo muqaabaraadka NISA ka socda waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa waxayna musabix leeyihiin wada hadal ayagoo markaas kala wada hadlayo in Soomaaliya iyo maxalliga Somaliland dib u midoobaan arintaas in laga yaabo inay hirgasho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa leeyahay musabix kulankooda la soo dejinaya si arinta wax looga bedelo marka mucaaradka Somaliland oo barihi dad soo dhaafa kacsanaa ay waxay leeyihiin waxa ku sugan hay'adda NISA magaalada Hargeysa waxayna kulan culus la leeyihiin madaxweynaha hadda waqti ka dhamaaday musabix cabdi ayagoo markaas sheegay wada hadaladaas kadib inay banaanka soo dhigi doonaan siraha qarsoon iyo waxyaabaha looga hadlay laakiin hadda ay ku sugan yihiin sida ay sheegeen magaalada Hargeysa marka cabsi ay qabaan mucaaradka waxayna leeyihiin marka hore doorashada nagu dhibay arinta Laascaanood culays kala keentay iyo waxa kale sheegeen in hadda xaaladii ay marayso in Soomaaliya dib loogu celiyo Faisal Calaara naftigiisu wuxuu sheegay inuu dib ugu laaban doono inuu ku biiro in Soomaaliya midowgii isla markaasna oo Soomaaliya oo Muqdisho ka degi doono marka waxyaabo badan oo sidoo marsan ayaa jiro mucaaradka Soomaaliland waxay ka shaqaysan yihiin in Muuse naftigiisu hoos oo heshiis ka galay isla markaasna la siin doono ra'iisul wasaare ama madaxweyne inuu ka noqdo Soomaaliya marka heshiis culus ayaa socdo wasiiro cusub iyo xildhibaan in la siin doono la sheegay marka waxyaabahaas iyo qorshahaas dheer ah socdo mucaaradkuna waxay ku eedanayaan musabix cabdi inuu dib u mideynayo Soomaaliya daawadayaal tan iyo markii SSC ay dagaalka ay bilaabeen waxa soo baxayo arrimo mucjiso ah ama difi naadir ah oo inta badan ka soo baxaya maamulka Somaliland waxa tagay magaalada Hargeysa isla markaana cigaal international ka degay diyaarad siday
erge ka socoto koonfur markii ugu horeysay 32 sano sidoo kale diyaaradaasi waxa ku sawirnaa calanka Soomaaliya laguma arag intaasoo sano calanka Soomaaliya in lagu arko goob kamid ah Somaliland isla markaana cid lagu arkana xataa cirka cid fiirsana la xiri jiray sidoo kale waxyaabaha la yaab kale ee ka dhacay baa waxa qayb ka noqday in wasiir kaahin uu goob fagaar ah uu ka sheegay in ay fashilmeen isla markaana ay Soomaali weyn ay ku biiri doonaan waxana la qaybsan doonaan Saleebaan Korre waa Saleebaan Gaal oo asna guurtida haysta waxa uu sheegay in ay wada hadal la galayaan garaadada hadii ay ka yeelan oo wali uu yiri ku celiya aan wada hadal aan la galnay marka arrimahaas oo dhan waxay ku siinaysaa fashilka ku yimid Somaliland waliba ay guulaha waaweyn ay ka gaareen reer SSC waliba la sacaanooda la xoreeyay kaliya ma ahe guula Soomaaliya oo dhan ay u riyaaqeen ayaa halkaas ka imaaday midnimo ayaa mataqaanay soo dhow gooni marka dib ugu soo laabto ninkii Cali ahaa ee ka tirsanaa nabad iyo nolol hadallo aad loola yaabay baraha bulshada ku soo qoray oo waliba uu doonay inuu musalsal ka dhigo waxa uu sheegay 3 nin in 2015 ay ku soo biireen waliba ay ku magacaabi jireen xitaa hadda markii ay joogeen Daacishta Soomaaliya horta cali laba arin ayaa loo aaneynaya arinta hadda oo waxa ku soo beegay inuu arintaas banaanka soo dhigo isla markaasna Fahad Yaasiin waa tiwaagi oo ka dhigay arinta xanaa arintii Mahad Salaad iyo Rooble lagu eedeynay marka labada arin oo lagu eedeynay cali waxay tahay inuu midnimadii nimankii leeyahay nabad iyo nolol laga saaray asaga taas inuu ka xanaaqay iyo inam qaab beeleed oo hadda uu weerarayo nimankan maadaama rag beeshiisa hore loo weeraray isbedelna uu ku yimid ama dhaqaale inuu qaatay labadaas arin ayaa loo aaneynaa marka waxa la leeyahay hadda asagu wuxuu sheegay inay jirto arin dhibaato ah isla markaasna shabaabka inay la shaqeynayeen nabad iyo nolol waliba 3 nin inay 2015kii ay ku soo biireen isla markaasna 3 nin ay ahaayeen rag aaminsan fikirka Axmed Godone iyo ninka lagu magacaabo inta uu nolow Axmed Godone iyo ninka lagu magacaabo Axmed Diiriye isagoo markaas ku sheegay rag minority inay ahaayeen isla markaasna awood loo siiyay inay nabad iyo nolol la shaqeeyaan marka arintaas ayuu sheegay markii dambana rag wuxuu sheegay inay 9 gaareen marka hore inay 3 ku soo biireen nabad iyo nolol waxa fashiliyay maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu mar kale xil ku soo laabto ama inay dawladnimadiisa hana qaadana in arintaas ahayd ayuu sheegay soo laaban waayo arintaas inay ahayd oo sheegay marka waagi horena waxba la isku turturi jiray waraa la isku tuuri jiray laakiin cali wuxuu ahaa udub dhaxaadka nabad iyo nolol hadda marka wararku waxay nagu soo gaarayaan in nabad iyo nolol magacaas la bedeli doono laga saaray rag hore oo la shaqeyn jiray cali oo kamid yahay mursal oo kamid yahay rag hore nabad iyo nolol ku jiri jiray in meesha laga saari doono nabad iyo magac kale oo cusub ay qaadan doonaan Fahad Yaasiin iyo ninka lagu magacaabo maxaa Cabdullaahi Farmaajo markaasna magacaas cusub xisbi cusub iyo rag cusub ku soo biirin doonaan arintaas marka uu inuu cali ka xanaaqay ayaa la sheegaya isla markaasna oo bilaabay inuu dacaayad ka fidiyo nabad iyo nolol oo isku dayo in maxaa yiraahdo waxyaabo badan inuu soo ifiyo marka waxyaabaha inay run yihiin inay been yihiin waxa laga ogaan doonaa muuqaalada ama wararka dambe oo soo dhigi doono isla markaasna wuxuu sheegay isniin walba inuu soo sheegi doono qayb kamid ah wuxuu kaloo sheegay inuusan magac dhabi doonin dadkaas laakiin dadku si dadban ay u fahmi doonaan xukaasho laakiin ma laga yaabaa ugu dambeyn dadka hadii hadalka ay ku celceliyaan in mataqaana uu magac dhabo dadka way aad bay mataqaana u daneynayaan nin kasta mataqaana wuxuu u qaatay waa hebel mataqaana yaa leeyahay hadda naftigeeda markii dadkii la yiri dad minority awood la siiyay markii la dhahay dadka koow waxay la soo boodeen Fahad Yaasiin markii labaad waxay la soo boodeen Cabdiraxmaan Dheere oo beesh shaqal u dhashay isla markiiba labadaas qofood ayaa ku soo dhacday dadka maskaxdooda marka maadaama uu sheegay dad minority ah in awood loo siiyay inay wax walba iska sameeyaan isla markaana shabaab ahaayeen oo marka hore lagu xaman jiray Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Dheere in shabaabka la shaqeeyaan isla markaa maskaxdooda taas laakiin hal beel oo kaliya marka soo ku dhigi karaa minority way hadda mataqaana shabaab la shaqeyn karin waa sida sababta la isweydiinayo waay marka warka ugu dambeeyso warka hadii laga daba geeyo ama su'aalaadka lagu badiyo waxay noqon doontaa inuu banaanka soo dhigo ama inuu markaas qaab beeleed ama qaab kale oo siyaasadeysan oo macnaha arrinta ay noqon weyso oo asagu banaanka soo dhigo wax walba uu sheego si toos ah oo magac dhaba arrintaas ayaan halis keeni doonto waana mustaqbal xumo ay noqon doontaa waxa laga yaabaa in nabad iyo nolol iyo soo laabashadeeda in lagu hortago arrintan dhaqaale fara badan inuu ku baxda laga yaabo xukaasho aad baad mahadsan tahay saaxiib gooni daawadayaal waxaa intaa kusoo afmeeray barnaamijkan kooban ee ku dulmeereynay xaaladii ugu dambeeyay ee geeska dagaalada ka socda magaalada Ascaanood ee habeenimada caawa ah dhacayo faahfaahinna ayaa ka soo baxayo kuwaasi oo barnaamijyadeena dambe insha Allah aan ku falanqeyn doono meelaha kala marayo dagaalka sidoo ku bilowday ciidda guusha ay raaci doontaa inta muuqaalka share gareey asxaabtiina la wadaaga wad mahadsantiin